بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الله سبحانه وتعالى يا مهلا إلهي baan ku mahadinaynaa subxaanahu watacaala inuu soo gaarsiiyey bishii barakeysneed ee khayraadka badnayd. maanta ay maraysa 29. allah subxaanahu watacaala amni iyo caafimaad inagu soo gaarsiiyey yaa mahadle. walaalayaal intaa kabacdi insha allahu tacaala kelimaddan la wadaagaya waxay noqon doontaa axkaamu zakaatu lilfitri. laba arrimood ayuu ilaahi subxaanahu watacaala uu noo jideeyey bishan akhirkeeda, laba acmaal. camalka koowaad wuxuu yahay waa zakaatu lfitr, camalka labaadna waa salaada. markaa ta koowaad oo markaa zakaatu lfitri ah ayaan insha allahu tacaala si kooban ayaan wax uga odhan doonaa ama waxay uga tilmaami doonaa insha allahu tacaala. marka koowaad waxaynu ka hadli doonaa insha allah goormo ayay waa la waajibiyey zakaatu lfitr. nuqdada labaad, xikmadda markaa loo jideeyey ama markaa loo waajibiyey maxay tahay. qodobka saddexaadna wuxuu noqon doonaa xukunkeeda. xukunkeedu waa maxay. qodobka afaraadna wuxuu noqon doonaa waktiga ay waajibayso, goormo ayay waajib tahay ama ay waajibi. qodobka ku sixiga wuxuu noqon doonaa goormo la bixinayaa iyo jinsiga la bixinayo iyo qadarka la bixinayo. akhiiran waxaan soo gabagabayn doonaa cidda markaa la siinayo haddii ilaahi subxaanahu watacaala uu ka raali noqdo. intaana waxaan markaa insha allahu tacaala ku dari doonaa haddii markaa berito hore oo jimco ah ciid haddii ay noqoto maxaa la yeelayaa. labadii ciidood baa isku soo dhacay. taana insha allahu tacaala wax yaroo kooban baynu ka odhan doonaa biidni illaahi tacaala. haddii aynu ku horeyno zakaatu lfitri goormo ayaa la waajibiyey. waxaa markaa la waajibiyey oo ilaahi tabaaraka watacaala uu waajibiyey sanadii labaad oo min alhijra kamid a hijrada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. isla sanadii markaa sanadkii labaad ee soomka ilaahi tabaaraka watacaala uu farad yeelay oo sanadii labaada ayaa la farad yeelay zakaatu lfitri. waa sanadii labaad ama sanadkii labaad. waxaana markaa u daliila xadiiska warinaya abi saciid alkhudri radia allahu canhu. waxau leeyahay abi saciid, kunaa nukhriju zakaata alfitri ida kaana fiina rasuulu llahi sala allahu alay wasalam. waxaanu bixin jirnay zakaatu lfitri, ayaanu bixin jirnay kiwa nabiga calayhi salaatu wasalaam una dhex joogo salawaatu ullahi wasalaamu calayh. taas waxa weeye waa xilligii marka la waajibiyey, waa sanadii labaad oo min alhijra markaa ka mid a. nuqdada labaad waxay tahay xikmadda markaa loo jideeyey zakaatulfitri maxay tahay. sideeda zakaatulfitri waxaa laga bixinayaa waa badanka ama waa jirka, oo waxaa loo yaqaanaa zakaatulbadan baa la idhahdaa. jirka ayaa laga bixinayaa. xikmadda loo jideeyey iyo ma garanaysaa maqsuudka
والله أرمون أرنتكود waxay tahay waxa laga maarmaan qofka saa'imka ee soo soomay ama 29 cisho ha soomo ama 30 maalmood ha soomo waa bilaadan waxa laga yaabaa inuu wax ka dhaceen lagu waa laga yaabaa inuu magaranaysa ku dhacay akhbaa ay ka dhacday hadal xun ama magaranaysa aflagaado ama cay iyo wixii lamid ah inay ka dhaceen ba laga yaabaa qofka saa'imka waayo macsuum ah oo bilaadan sadaradeed baa wax weeyaan xigmaddu waxay tahay wax la jireeyay xaalii markaa ka dhacay bilaadanka soomka dhexdiisa intuu soomanaa bisha iyada waxay markaa lagu kabi lahaa oo ah zakaatul fitr iyada ayaa markaa kabaysa waxay markaa baad culamaa zakaatul fitr waxay la mid tahay sujuudu sahwi la mid tahay sujuudu sahwi la mid tahay oo qofku waxa weeyaan salaadii hadii khalqal uu ku yimaado oo salaadii waxa weeyaan nuqsaan ay ku timaado ma khalqal uu ku yimaado ee wuxuu ku kabaya markaa waa sujuudu sahwi sujuudu sahwi lagu kabaa soomkii markaa khaladaadkii ku yimid ee qofka bilaadanka ka dhacay isagoo intuu soomanaa waxa markaa u kabaysa waa sabcan kula zakaatul fitr baa u kabaysa waa xikmadda markaa loo jideeyay xikmadda labaadna waxay tahay waa tu'matu lil masaakin waa qoodin waxa uu tahay markaa qood masaakiinta iyo fuqarada dadka baahan si maalinka ayada ciida ay muslimiinta yacni wax haysta ay farxadda yacni wala qayb galaan oo wala farxaan waa xikmadda labaad oo loo jideeyay oo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu wakiilaha yacni tuhratu lis-saa'im min al-lagwi war-rafath qofka saa'imka ayaa waxay ka dahiraysaa wixii lagwi markaa xumaan ee ka dhacay xadiiska markaa Abu Daawud iyo keyrkii markay warinayaan xikmadda labaadna waxay tahay dee dadka masaakiinta ee fuqarada maalinkaas in su-aasha laga kaafiyo oy la wadaagaan farxadda muslimiinta kala qayb qaataan labada xikmadood baa markaa ilaahi subxaanahu watacaala yacni wax weeyaan u jideeyey ama markaa loo jideeyey boqolada saddexaad waxay tahay xukunkeedu muxuu yahay zakaatul fitri xukunkeedu muxuu yahay zakaatul fitri xukunkeedu waa waajib weeye waxay waajib ku tahay calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima ayay waajib ku tahay zakaatul fitri ama markaa lab ha noqdo ama maxaan ku dhahday dhidig ha noqdo ama qof yar ha noqdo ama qof weyn ha noqdo ama qof caaqil ama mid majnuun ha noqdo intaba markaa way ku waajibaysaa waxaana u daliila xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ibnu cumar xadiiska warinaya ibnu cumar ayaa wuxuu yihi ibnu cumar فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رسولك صلى الله عليه وسلم وحواجب زكاة الفطر أي كواجبين وعويا بشهر رمضان وعمرك كواجبين wuxuu waajibiyey saac markaa timir ah ama saac markaa maxaan ku dhahday heed ah wuxuu ku waajibiyey addoonka hadduu addoon yahay hadduu xor yahay hadduu dhidig yahay hadduu lab yahay hadduu yar yahay hadduu maxaan ku dhahdaa weyn yahay hadduu caaqil yahay hadduu majnuun yahayba min almuslimiin buu marka muslimiinta xadiiskaasina waa xadiis markaa ku sugan saxiixaynka waa muttafaqun calayhi وكذلك وحو صار نقليا ابن منذر رحمة الله عليه وحو صار نقليا إجماع سواء المركع علماء يكون إجماعا زكاة الفطر إلى تاي فرض واجب وكذلك إسحاق مركع خلاف تبشر
زكاة الفطر تفرض والنبي عليه الصلاة والسلام فرض يلو وكفر ديال مركا مسلمين وكفر ديالي waxa marka loo shardiyaa waajibnimadeeda laba shardiga koobaad wuxuu yahay qofkan waa inuu yahay qof muslima waa inuu yahay yani fala tuqbal min alkafir kafir waxba laga aqbali maayo hadduu yidhahdo waan zakaynaya waxba laga aqbali maayo waa inuu yahay qof muslima waa shardi weeyaan وإلهي تبارك وتعالى القرآن كوكله وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أنا وحويا حلو أقبل واي وحي لبحان حتى الزكاة هي وحي كلمة وحلو أقبل وحويا وأن من إلهي كذبوا إذا مركا قف كافر وقال إلهي وحباك أقبل الله سبحانه وتعالى مركا شرط يقول قف كان يعني يكون جيب السوائل يا قف مسلما شرط قال وضع القدرة عليها وإن يا قف وحيا أو بحنكرة وإن يهي تصالح وحويا هبينك عيدة إيمانك عيدة وحدة رابة وقود كيس يعني ديراتك وإنه هيو أما وإنه هايستو كاسا يكوى جويسنا ولو واحد ديراتك كان صعب ينقل با صعب ينقارن با صعبها كيرانين مرة دي وحوين هبينك عيدة يمالك عيدة واحد ديراتك أطو هايستو صعب ينقارن انت أمر بحنيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم انت صيموا بحنيا مرة قفك وإنه وحيوه ولذلك waxaa laga bixinayaa qofku wuxuu ka bixinayaa ubadkiisa kow ya cid alla cidii markaa masaariiftiisa ama magaranaysaa isagu uu biiliyo oo nafaqadooda marka ay ku waajibtay ayuu ka bixinayaa qof ama ha yaraado ama ha weynaado ama addoon ha noqdo ama markaa xor ha noqdo oo markaa ubadkiisa uga horreeyaan yani ubadkii u dhalay zawjadiisii xitaa waxa weeyaan waalidkiis inuu qofku ka bixiyo hadduu waalidkiisa una haysan waxaa markaa culimmada yidhaahdeen ilmuhu bal ka waran hadduu maal iska leeyahay maal hadduu isagu iska leeyahay oo markaa biima ka bixinaya mise kama bixinaya mise maalkiisuu ka bixinayaa ما waxay leeyahay marka hadduu maal leeyahay maalkiisa ayuu ka bixinayaa ilmuhu laakiin sida saxda ah ee jumhuurtu yacni u badan yihiin waa inuu waalidku ka bixiyo ilmihiisa walow maalba ha lahaadee sababtu waa maxay mar hadday nafaqada isagiiba ay ku waajibtay nafaqadani mar hadday kugu waajibtay inaad biilisay ilmahaaga halkaas baa laga raacayaa maal baa haystee waa inaad markaas ka bixiso weeye على كل حال waxa laga bixinayaa cid alla cidii markaa mas'uuliyad ka tahay guriga kula gasha ayaad ka bixinaysaa zakada ama yaraada markaa ma weynaado cidaas laga bixinayaa qodobka kale waxay tahay waqti ma ay waajibaysaa goormay waajibaysaa zakatul fitr waxay waajibaysaa تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد وواجب زكاة الفطر على عيد مركز على هبينك عيدا هبينكاس مركز لو يقانو هبينك بارة عيد عيد الفطر حل قاسي واجبي وجوبك حل قاسي يودعيا أو قفك حل قاسي يكون واجبي سان قف قاسو كمدة مركز من أهل الوجوب ضدك أي كو واجبتي أما هدي أين كو واجبين ده بحين مايو عند واحد جرته والزكاة الفطر يعني لقى بحين وإنه واجب هين لقى بحيو قفت الزكاة الفطر لقى بحين يا واحد شرطيا رمضان تين الطرفين وكسو قالوا وقت الوجوب كنا إنه قيد كسو قالوا
taasaa markaa waajiba. tusaalaha waxa weeyaan qofku haddii uu dhinto, qof baa dhintay cadceeddu intayna dhicin ka hor, maalinkii ugu dambaysay ramadaan cadceeddu intayna dhicin ka hor ayuu qof dhintay. qofkaas zake baa lagu leeyahay oo zake ma laga bixinaya? maya, lagama bixinayo. maxaa looga bixin waaye? waqtulwujuub ma gaadhinba, xilligii zakaatulfidri ay waajibtay ma gaadhin. cadceeddii oona dhicin daqiiqado ka hor, cadceeddii oona dhicin ayuu dhintay. zakaatulfidri kuma waajibin oo laga bixin maayo. taa cagsigeeda waxa weeye, taa cagsigeeda oo yadna markaa la raba in lagu baraarugo waxay tahay, haddii markaa qof matalan uu soo islaamo, haddii uu qofku soo islaamo, cadceeddu markay dhacday ka bacdi ayuu soo islaamay, cadceeddu way dhacday. idan markaa qofkaana markaa zake ma lagu leeyahay, ma laga bixinaya, ma la odhanaya qofku waa soo islaamo xeelada islaamku soo galay zakadaa laga bixiyo miyaa la odhanaya? maya. maxaa la odhanaya? sababtu waa maxay? ramadaantiibuna wax ka soo gaadhay isna. kan maxaan ku radaa qabla alquruub dhintay, cadceeddu intayna dhicin ka hor dhintay, wuxuuna gaadhin waktigii zakadu ay waajibtay ayuuna gaadhin. kan kale bacda maqrib soo islaamay marka cadceeddu dhacdayna ramadaantiibuna wax ka soo gaadhin. marka qofku labadaba waa inuu wax ka soo gaadhaa, xilliga ay waajibtay iyo ramadaantii labada darafba waa inuu wax ka soo gaadho. saas daraaddeed waxa weeye ilmo yara haddii uu kuu dhasho bacda maqrib, hadduu kuu dhasho maalinka ramadaan ku dambaysa, habeenka ciidda markii takbiirta lagu dhawaaqo ilmo yar kuu dhashay, zakaatulfidri laguma lihin. sababta loogu lahay waa maxay? ramadaantiibuna soo gaadhinba. zakaatulfidri goormaa la bixiyaa? ramadaanta la bixiyaa soo maa? ramadaan ma soo gaadhin, markaa laga bixin maayo. taasoo kale waxa weeye, haddii qof waxa weeyaan gabadh uu la wareego, gabadh uu mehersado oo bacda maqrib waxa marka takbiirta lagu dhawaaqo buuri qabiltuuri, zake ka bixin maayo. sababtu laga bixin waa maxay? dee waxayna soo gaadhin markaa ramadaantii xilkiisa. saasoo kale waxa weeye, qofku waxaa la doonayaa waktigaas ay waajibtay, culammada qaar baa ka horraysiiya oo shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin ramadaanta kuwadeeda waa la bixin karaa zakaatulfidri, waayo asbaabtii baa la helo oo ramadaantii ah. saas bay iyagu leeyihiin. bacd culamaana waxay leeyihiin waxaa la bixin karaa maalin markay ka harsan tahay ramadaan, ama 2 maalmood ay ka harsan tahay waa la sii bixin karaa. maalin baad ka sii horraysiin kartaa, 2 maalmoodna waad ka sii horraysiin kartaa. waktiga markaa la bixinayo waxaa ugu fadli badan in la bixiyo qabla khuruuji innaasi ila salaa, salaada intaan loo dareerin, salaada intaan loo bixin ka hor in la bixiyo, waktigaasaa ugu fadli badan. waayo waktina wakti waxa la yidhahdaa jawaas, waktina waxa weeyaan wujuub, waktina waxa weeyaan wakti fadiilo weeye. marka waktiga ugu fadliga badan waxa weeye waa in la bixiyo ama qofkuu bixiyo salaada intaan loo dareerin ama salaada intaan la tukanin ka hor. waxa uu daliilo xadiiska warinaya abi saciid al-khudri radiyallahu canhu ayaa wuxuu leeyahay, kunnaa nukhriju fii cahdi rasuulillahi sala allahu alayh wasalam yowma alfidri saacan min طacaam. waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan bixin jirnay saac oo markaa maxaan ku dhahdaay raashina ayaanu bixin jirnay buu leeyahay saxaabigaas, oo waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, amara bizakaati alfidri, wuxuu nabigu amray calayhi salaatu wasalaam zakaatulfidriga in la guto oo la bixiyo qabla khuruuji innaasi ila salaa, dadku intaynan salaada u bixin ka hor in la bixiyo ayuu nabigu amray calayhi salaatu wasalaam. waa amar, waktigaasaa ugu fadli badan. marka haddii markaa waktiga wujuubkaad bixisanne, xilligaa cadceeddu ay dhacday bixisanne waa fiican tahay. haddii maalin ama 2 maalin laga soo horraysiinayadna waa fiican tahay. laakiin sida fadliga badan ee nebigu amray calayhi salaatu wasalaam waa in la bixiyo zakaatulfidri, waa in la bixiyo intaan salaada loo bixin ama salaada loo dareerin ka hor, waa in markaa la bixiyo. haddii markaa qofku uu bixiyo salaada ka bacdi hadduu bixiyo,
نبي يقول عليه الصلاة والسلام من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حديث نوعها من أداها قبل الصلاة قفك بحية صلاة كهر زكاة بحية فهي زكاة مقبولة بالنبي عليه الصلاة والسلام. زكاة سواء زكاة العقبالين بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أداها بعد الصلاة أحد كبحية مضوف كبحية الصلاة الدبدين فهي صدقة من الصدقات بالنبي عليه الصلاة والسلام. معنى هو الصدقة مركز صدقات كمية تفرل كي مركز وحوي يواجب كي مركز وناقي كهري مايو. حديث أبو داود مركز غير كي ورنيا اللهم شيء عذر دار أمي ما دم وياه أقول لا عذر داري كرا وقت مع يا باين عذر دار مركز وايس عذر دار كواحد كمية تصالحان قفكي لا نوع كنت كريا مساكين بين الشوين سكدنا مركز وحوي عذر دي بمهاي صلاة دين وقت جد واتجاهها هي عذر دار بليه عذر دار بليه وعكمله مثلا قفوا للزكاة يقبحه قفوا وكيشوا للزكاة يقبحه قفوا هو كيشنا مركع عذر دار بويا شيء أما وإلاوي وبلالا عذر دار بويا ينبع على الصلاة وبحنا يا شرع مركع وبشر وحي مركع عذر دار أنا هاي عذر دار كسر حرسل ما بنانه الزكاة مركع الدب لو قدمه صلاة الدبير وإلا بحيه صلاة الكهر وإلا بحيه سمركا وراء جديو فضل كذا مركا ذو هشلو هذا النوع الله بحنيه بحويه جنسي الله بحنيه بحويه هاي جنسي الله بحنيه وحوي نبي قال المام عليه الصلاة والسلام نبي قال نور شاقي حديث كان من عمر ورني رضي الله عنه ابن عمر باوعري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وعلي الصحابي رضي الله عنه رسولك صلى الله عليه وسلم وحو فرض عليه زكاة الفطر صاع أبو فرض عليه أو تمر أما الصاع وحو فرض عليه مركا هاد يعني الصاع مركا لله وأفر مدوي قياسا وحو يمركا سنة وذكرنا ولبك كيلو يبرد علماء قاركود waxay gaarsiiyeen 3 kiilo way gaarsiiyeen 3 kiilo ay gaarsiiyeen laakiin sida marka yaacnaan u badanahay waa 2 kiilo iyo bar weey saacuna waxa weey waa afar mudbal dhahada gudkuna waxa weeyaan oo labada gacmood sida la isku garab dhigo la daro afar jeer la daro waliba waxa weeyaan qof dhaxdhaxaad oo gacmihiisa ay yareen oo laakiin qof dhaxdhaxaad وأفر جير مركا عادرتوي أفر جير سلا عادو درتو وحا مركا على بحنا يا نوى الراشوي وعلى بحنا يا نوى الراشوي نبي يقولوا ساعا من تمر أو ساعا من شعير ممكن يصير حديث نبي يقولوا عليه الصلاة والسلام هو صاع أما هو 2 كيلو يبر أما هو 3 كيلو وهو حوالي تمر أما شعير حين وحا القبس لو بدك تمرت يا شعيرتها سيدا السحابي قلت الماما يا مو شيغايو وقتها waxa loo badnaa isticmaalkiisa waa timirtiya shaqil ee aad loogu badnaa hadda waqtigan aynu joogno waxa la fiirinayaa beledka aad ku nooshahay baa la fiirinayaa ma fiirinaysaa maxaa u badan oo la isticmaalaa kaasba marka lagu bixinayaa waayo maadaama waqtigii nabiga kaleey salaatu wasalaam la isticmaalayay inta badan timirtiya heediya wixii lamida la isticmaalayay imikana waxa loo fiirinayaa wadanka aad ku nooshahay ama beledka aad ku nooshahay waxa marka loo badan yahay ama marka u badan yaa lagu bixinayaa oo marka 2 kiilo iyo bar ah ama 3 kiilo oo raashina hadaba ma lagu bixin karaa marka lacag ma lagu bixin karaa waa inta badan soo noqoto weey oo qof baa go'aanaya lacag baan ku bixinayaa balkoor maya lacag lagu bixiyaa maya lacag lagu bixiyaa waxa la ma banaan waayo waxa qaba in lacag lagu bixiyo waa Abu Hanifa soo lacag waa lagu bixin karaa waxa kale oo isna jira athar laga warinayo Abdullah maxaan ku raadin Muaad bin Jabal laakiin atharkaasi uu sugnayn atharkaasi ma sugno atharkaasi wuxuu tilmaamayaa
معاذ بن جبل رضي الله عنه وقت يمن توجوغي إن تذكر رأي من هذا يعني العقل كوب حيوري أثر كاس مركز مصدقنا أثر مركز سجن معها مركز واحد لقوم بحني أوار راشوي العقل معها العقل تكون بحسابهم بس كبحي إذا كذا ولا بقولي ويا علماء القار واحد ليه وحلا فيرنا يا قفن حالتي سمسكين كحالتي سال فيرنا يا هي وقت النبي عليه الصلاة والسلام مساكين ويشرين صلوات الله وسلام عليه هو ينظرون تود ويكل قد إسلام هذا النبي عليه الصلاة والسلام راشين كان بوكو بحنيه أما تمر هالنقطة أما هذا هالنقطة تام النبي عليه الصلاة والسلام بوكو بحنيه مركز سلف في عنه فرض بدن أدلة واهتمام بيان الصحابة الرسول كنا يكون بشرين وإن مركز راشين لو بحيه راشين ومركز يولو بحيه وكذلك القدر كنا وأنه تلمامنا ولا كيلو يبرع ما وصل كيلو قدر كمركز الله بحنا يوم يا المركز الله سينا يا عند الله سينا يا ولا سكجرنا يا ومعروف عند الله سينا يا ومعروف وي كل يوم على السنة المركز عند هو المسؤول كتحاي أبيل كذو كوه شيء هم بعض السكين زكاة الفطر واحد لو يقانون زكاة البدن هي زكاة المال لبضع والله ما استنكره عند أعضو المسؤول كتحاي يعني أبيل كذي مسارين كذي كوه جبتي زكاة الفطر المركز ما استنكرتي أنت كسر على مركز مساكين أبو أركتين وباهي هاي أي المركز أقول بحريسة تاس واحد ويندين وشيء مركز يعني قفك مسلم كا لوجا بهاي مركز إنه خيريو مركز واحد ولا لا زكاة سيدا إلهي تبارك وتعالى هو شيء وإن مركز إنه بدلهم صوم كي إنه كبيسة خلالات كيو وحيارين نقدر نعيب بلاد بينو نعيب صدق ولا له المساكين تمارة باهن هبانك يدنا فرحت بوتو فرحت بين قلب طيب كريان مركا جيسي قال بحنا لو راشين لعق معها قيمنا لو بحين كرو صدق واحد شرا دي بدا العق كصادرون يا زكاة الفطر جيب بحي والعق تصادران وضد كان وصادر وكيل كا العق تصادر وين راشين كويبيا راشين وين كويبيا هنا العق بحيان معها انت الراشين كويبيا انت بدل راشين كوين المساكين تو قيمين لكن العقد يصدر إن الدين هو بحيان مايا هاي أن الله هلا وقاله وهي هاي أنت هذينو كجبحنا ولا يا الزكاة وعمرك يدلح صد مضل هذه مركا أي كل ما عن عيد دي مركا لبدي عيدود هذي كل ما جمعه يمحن كل هذا عيد هذي كل ما حال يلي يا مركا حال يلي وعن مركا قتل ما بدنا وحير وكون سيرة كوما إن شاء الله تعالى وقوة المال الضونا هذه مركا عيد بي كل مال يجمعوا أي كل مال حديث كمركا ورنا يو ابن عمر صحابي قال هذا ابن عمر حديث كورنا يو أي وعلى اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعولي يا ابن عمر وقت النبي عليه الصلاة والسلام لم يعيد وضع كل مي أواج جمعية يوم جمعية مركب محمد هذا عيد دي بكرمي فصلى بالناس رسولك عليه الصلاة والسلام ذاتك يوتجي عيدي ثم قال كبعد النبي يقول ملك دجيه كبعدي من شاء يأتي يعني الجمعة فليأتها كبعد النبي عليه الصلاة والسلام ملك دجيه الصلاة دي أي وحوري ورقفك الدون يقولين الجمعة يمادو هاي يمادو qofkii doonaya markaa inuu iska joogana iska joogo oo meelihiisa intuu iska joogo waxa weeyaan salaadii duur ha oogo sidoo waxa weeyaan horta salaada duur lagama tagaayo sadaradeed ba waxa weeyaan kelmad maxaa ku raday in marka ay kulmaan jimcada iyo maaragtay ciidu waa arrin markaa fuqaada yani isku khilaafsan yihiin culimadu waa isku khilaafsan yihiin waxa marka ay ku leeyihiin culimadu saddex qowl صدق على قول واحد راعي دونا قول كمركا وجوده أدلة يا نصوص وجوده أي راعي دونا إن شاء الله تعالى قول كمالوح ياي حنابلة واحد ليهم هدي عيد يا مركا جمعة أي كلمان
ciiddii jumcada haddii ay kulmaan waxaa markaa culimmada xanaabilada ay leeyihiin jumcadu way ka dhacaysaa caman salaata alciid caman salla alciid waa xanaabilada hadda u fiirsada waxay leeyihin haddii ay kulmaan ciiddii jumcadu way ka dhacaysaa ciddii markaa salaada ciid tukatay xanaabiladu saasay leeyihiin ilaa imaamka mooyaane imaamka jumcadii way ku waajibaysaa waxay idhahdeen kama dhacaysa imaamkii maxaa yeelay isagu dadka imanaya ayuu isagu markaa tujinaya oo khudbaddii u akhriyayaa in markaa la helo mooyaane cadadkii la rabay inay ku gundanto jumcadu inay ka yaraadaan dadkaas mooyaane xanaabiladu saasay leeyihin oo iyagu waxay leeyihin haddii yacnaa jamacuu ka yaraado 12 qof hadduu ka yaraado inay xanaabiladu jumcadii markaa lama oogaya bay leeyihin in cadadku 12 qof uu ka yaraado mooyaane jumcadii waa la oogayaayoo khadiibkii waajib bay ku tahay ciddii markaa ciidda tukatayna waxaa u bannaan inay soo xaadiraanna waa u bannaan tahay ciiddii ay ka soo maxaamada jumcada yimaadiin inay meelaha iska joogaanoo ama jamaca ku tukadaan ama jamciya ku tukanin salaadii duhur ay ogaan markaa xanaabiladu halkaasay ka baxeen amaa waxa weeyaan shaaficiyadu waxay leeyihiin waxa weeyaan salaada ciid waxa weeyaan waa sunna bay yidhahdeen salaada jumcana dhexen waa waajib mar hadday salaada jumco ay waajib tahay ciiddiina marka ay tahay sunna waxay dhaheen marka waajib meesha kama saarayo sunna meesha wax kama saarayo oo waxay dhaheen markaa shaaficiyadu waa la tukanayaa maxaan ku dhahdaa jumcadii tan la tukaday ka horraysana waxay dhaheen waa sunna waa shaaficiyada markaa madhabka u dhisba sheegana weeye madhabkaas saasuu leeyahay ilaa waxay ka soo reebaan markaa shaaficiyadu dadka iyagu meel fog ka yimaadaan oo waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisa waxaa iman jiray dad maaragtay ka fog meelo fog bay ka iman jireen dadka noocaasu bay markaa shaaficiyadu u ruqseeyeen inayna jumcada tukaninoo maadaama iyagu ay laabanayaan oo waxa weeyaan guryahoodii foga ay ku laabanayaan ay ku noqonayaan waxay dhaheen markaa iyadu jumcadii waajib kuma aha waayo mashaqo iyo mushkilay kala kulmayaan soo noqodkii shaaficiyaduna halkaasay mareen oo waxay leeyihiin salaada jumca waa waajib iyagoo daliishanaya aayadda qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumca fascaw ilaa dikri illaahi wadaru lbayc marka salaada loo dhawaaqo salaada jumcada ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala u yaaco yacni dikrigiisa u socda yacni waxa weeyaan waa waajib weeye salaada jumca salaada kalena de waanu wada garanaynaa idan waxa weeye sidaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ayaa fiican inaynu raacno amaa markaa maxaan ku dhahdaa xanafiyada iyo maalikiyadu waxay leeyihiin jumco mar hadduu qofku tukado waxaan u jeedaa ciiddii mar haddii uu tukado jimco laguma laba inay markaa iyagu leeyihin markaa isku soo ururiyo waxa weeyaan in salaada jumcada la tukanayaa shaki kuma jiro hadday isku soo dhacaan oo beri toole ay ciid noqoto salaadii jumco waa la tukanayaa qofkii markaa isagu ciidda aan tukanin ikhtiyaar buu leeyahay waxaan u jeedaa qofkii ciidda tukadana ikhtiyaar buu leeyahay inuu ka soo qayb galo jumcadii iyo inuu duhur tukado duhurka marnaba lagama tegaayo iska jira dadka qaarkood baa aaminsanba jumco iyo duhur midna inaan la tukanayn oo casar waa iskugu imanaya meesha maya qowlkaa naga ilaaliya salaada jumcada waa la oogayaa imaamku waa oogayaa iyo ciddaan ciidda tukaninba khadiibka iyo ciddaan ciidda tukanin labadaasna way oogayaan jumcada cidda markaa ciidda tukatay iyaguna ikhtiyaar bay leeyihin baanu lehi sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi qofkii doonaana ha yimaada jumcada qofkii doonaana iska joogo laakiin iska joog marka lagu leeyahay salaadii duur waad tukanaysaa dee 4 ragcadood baad tukanaysaa insha allah marka waxa weeyaan salaada insha allah hadday isku soo dhacaan xukunkeedu waa sidaa ula socda waa la tukan doonaa sidoo kale waxa weeyaan aadaab bay leedahay ciiddii aadaabteedana waxaa ka mid ah haddii ilaahi subxaanahu wa tacaala uuna gaadhsiiyo ciiddan iyadaa waxa weeyaan
marka salaadaad u soo baxayso waxa sunno ah inaad wax soo cunto ilaa bil dhan baad soo soomanaadaad af xidhnay soo maaha waa inaad markaa timir weliba sida sunnaha waa inaad timir soo cunto 3 midh ama 5 midh waa inaad soo cunto waxaa kaloo iyadna sunno ah in waxa weeyaan qofku yacni dharkiisa ugu quruxda badan labiskiisa ugu quruxda badan inuu soo xidho cadarkiina uu soo marsado raggaynu ka hadlaynaa marka dariiqaad soo martayna waxa weeye hadhow toole inaad dariiq kale ka wareegto xikmado badanna waa ku jiraan oo waqti uma hayneen laakiin waxaad ogaataan haddii ay beri ciid noqoto oo ilaahi subxaana wa tacaala uu na gaadhsiiyo marka koowaad waxaynu samaynaynaa qofku inuu soo maydho inaad maydhato isnadiifiso dharkaaga ugu quruxda badan aad xidhato cadarka ugu udgoon aad marsato xitaa cadar haddaad weydo widhay culimmada adigu aad leedahay kaxaajiyadaba iska soo marso waa kuu bannaan yahay hadduu guriga ku weyno kaas mooyaane iska soo marso laakiin cadar la-aantanu iska ilaali in marka haddana aad soo marto dariiq yacni aad soo marto waxa weeyaan timirna aad soo cunto waxna aad soo cunto ila intaasoo dhan baad soo soomanayda aad khilaafto markaa soonkii halka markaad timaadane hadday barax tahayne dee iska fadhiiso hadday masaajid tahayna taxiyatulmasjid markaa la kaalo taxiyatulmasjid la kaalo dabeedna iska fadhiiso takbiirtaada iska akri marka insha allahu tacaala waxaa kaloo yadnada ku baraarujin lahaa maalinkaa ciidda waa in markaa ninka yacni waxa weeyaan laga rabaa inuu ehelkiisa uu ka farxiyo ehelkaaga inaad ka farxiso oo biilkii aad kordhiso yaa si farxadda markaa yacni u muuqato guriga uga muuqato ciyaalkii hadduu ilahay wax u dhiibo ciyaalku wax u dhiibto xaajeedkii wax u dhiibto yaa si markaa guriga farxad uga muuqato waa in farxad loo muujiyo biilkii aad kordhiso awal haddaad biilkii yar kordhiyo uu kugu yaraa haddii marka ilaahay uu ku dhiibo maalinka iyada inaad yar kordhiso marka iyadna waxa weeye waa sunna oo aad ba u fiican tahay farxadday ka mid tahay farxaddayay ka mid tahay marka insha allahu tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka rajaynayaa dembi dhaaf iyo soonkaanu soo soonnay ilaahi subxaana wa tacala allah inaga aqbalo ilaahi tabaaraka wa tacala inaga aqbalo kuwii laga aqbalo allah inaga yeelo kuwii laga aqbalo allah inaga yeelo kuwii laga aqbalo allah inaga yeelo dembigeenana allah subxaana wa tacala allah dhaafo bisheedana ilaahi subxaana tabaaraka wa tacaala ilaahayna gaarsiiyo amni iyo caafimaad iyo bashbashka iyo barwaaqo ilaahi subxaana wa tacala inagu gaarsiiyo walaalaheen markaa dhibaataysan allah dhibaatada kaga qaado dad badan baa xanuunsanayo muslimiinta ka mid ah allah caafiyo dad badan baa soomi kari waaya maanta oo wax weeyaan xanuun la soomi waaye ilaahi tabaaraka wa tacaala ha caafiyo ilaahay caafimaadku degdega haa siiyo inta caafimaad qabtana caafimaadka allah u siyaadiyo ilaahi subxaana wa tacaala u siyaadiyo inta dhimatana allah u naxariisto qubuurtooda allah u waasiciyo qubuurtooda allah u waasiciyo innagana alla inagu daba naxariisto bisheedana allah ina gaarsiiyo farxad iyo bashbash iyo barwaaqa alla inagu gaarsiiyo kuwii soomka laga aqbalay iyo cibaadaadkana laga aqbala allah inaga yeelo kuwa naarta laga xoreeyana allah inaga yeelo ilaahi tabaaraka wa tacala waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala inuu jannadiisa sanoo kale noogu soo kulmiyo inagoo ma garanaysaa maaragtay faraxsan ilaahi tabaaraka wa tacala jannadiisa nagu soo kulmiyo intaasaan kolley kelmadda kusoo gabagabayn lahaa aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu